الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن قدها بضا وضيال ميل كستا يقوب كستون نقدا ونيسان halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee xorriyada 24 TV xarunta guud uu ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal waxa la soo gaaray intaan hawada idin soo marin jirnay war waxaan idinka haynay dalka gudihiisa iyo gudahaan caalamka warkana habeenkan caawa waxa uu diyaaray in la socodsiiyo anigoo Cabdiraxmaan Maxamuud Hayba wadabadayda wararka ugu doorka roonlana waxaa ka mid ah xukuumadda Somaliland ayaa cambaaraysay socdaalka uu madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ku yimid deegaano ka tirsan gobolka Sanaag khilaaf xooggan ayaa ka dhashay xeerka kufsiga ee dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo socdaal ku yimid deegaano ka tirsan gobolka Sanaag dowladda Itoobiya ururka NLF oo shir uga socdo magaalada Asmara madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo socdaal ku tagay Kuuriyada Waqooyi daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qodobadayda wararka ugu doorka roon imikiya haatana kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan bilaabay xukuumadda Somaliland ayaa cambaaraysay socdaalka uu madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ku yimid deegaano ka tirsan gobolka Sanaag si faahfaahinta warkaasi inoogu hayso wariyay Saacada Axmed Cabdi dowladda Somaliland ayaa cambaaraysay socdaalka uu madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ku yimid magaalada Badhan ee gobolka Sanaag madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ku sheegay inay si adag u cambaaraynayaan socdaalka uu madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ku yimid degmada Badhan ee ka tirsan gobolka Sanaag wuxuuna yiri cambaarayna runtii Abdiwali Gaas oo ah ninka gudoomiyaha maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya Puntland oo ku soo xadgudbay xuduudda Somaliland saacadan ay hor joognaan leeyahay wuxuu soo gal leeyahay maanta duhurkii magaalada Badhan gobolka Badhan waxaan u aragnaa arrintaas xadgudub qaran iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida uu meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timid dowladda federaalka Saacada Axmed Cabdi Xorriyada 24 TV magaalada Hargeysa khilaaf xooggan ayaa ka dhashay xeerka kufsiga ee dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland soo faahfaahinta warkaasi inoogu hayo wariye Cabdiwaasac Khadar shir jaraa'id oo ay maanta magaalada Hargeysa si wada jir ugu qabteen saddexda xisbi qaran ayaa waxa ay ganafka ku dhufteen xeer ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland isla markaana uu dhaqan galiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi waxa aanay ku tilmaameen in gabi ahaanba uu ka soo horjeedo shariicada Islaamka waxaana yiraahdeen xeerkan wuxuu xusuusiyay xeerkii qoyska ee Maxamed Siyaad Barre soo saaray ee 10 wadad lagu digay ayuu xusuusiyay wuu ka xun yahay waa uu ka qurbu yahay xeerkii qoyska ee 10 wadad lagu digay 1974 aad iyo aad buu xun yahay waayo kaasi wuxuu lahaa kaliya rad halka ilanka iyo ilanta isku in baa la siinaya intaasoo keliya ayaa kaa ku qoray oo shuuciyadii iyo hantiwadaagii iyo sistamkii uu waddanka ku socday berigaa uu qabay kani dhaqankii reer qoomuluud buu fasaxayaa waxaan iminka gaaladu baarlamaanada ay ka ansixiyeen ee qoyska nin qaba laag qabta siladii buu fasaxayaa aayadii quraanka ay kitaabka Ilaahay ku qoraa ku horimanaya marka ay noqoto aayadaha quraanka iyo kitaabka Ilaahay markay noqotana ninkii taageera sayru taala laba malag baa garba ka saaran inkastoo masuula inkastoo madaxa
oo ka qoraya oo alla inoogu sheegay kitaabkiisa oo maalinta qiyaamaha odhanaya hoogayga wax yarba may dhaafin wixii aan sameeyey. cabdiwaasac khadar maxamed xuriya 24 magaalada Hargeysa. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo booqasho ku yimid deegaano ka tirsan gobolka Sanaaga sida warkaasi inuu eegayo wariye Maxamed Koronto. weli maxamed cali gaas iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay socdaalku soo maray deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. gaas iyo wafdigiisa ayaa soo gaaray magaalada Cawsan oo ka tirsan gobolka Sanaag. madaxweynaha khudbad halkaasi ka jeediyay iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaasho halkaasi hadal ka jeediyay ayaa yiri codsigiina uu inuu madaxweynuhu ku tixgelin doono waxaanu filaynaa inuu ka dhameyn doono madaxweyne ku soo dhawaad Cawsan ayaa yiri gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. dhinaca kale hadal kooban oo jeediyay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu yiri aad baan idinku mahad celinayaa reer Cawsan soo dhaweynta wanaagsan ee aad noo sameyseen. waxaan ku faraxsanahay inaan idin imaado waan jeclaa inaan gobolka ku soo waqto laakiin nasab wanaag maanta ayay noqotay. socdaalkaygu ma aha mid musharaxnimo ee waa mid mashaariic aan ku furayo. Cawsan markii aan soo maray waxaan u baahan tahay jidad iyo ceelkiina waanu qodnay wadadiina waa ay socotay ayaa yiri madaxweynaha Puntland mudane gaas. khudbadaasi halkaasi ka jeediyay Maxamed Koronto xuriya 24 TV. dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF oo shir uga socdo magaalada Asmara si faahfaahinta warkaasi inoogu hayso wariye Iida Cabdirasaaq Suudi. wadahadalo nabadeed ayaa maanta magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea uga furmay dowladda Itoobiya iyo jabhadda ONLF iyadoo diiradda lagu saarayo qaababka uu noqon karo heshiis dhexmara labada dhinac sida uu xaqiijiyay wasiirka warfaafinta Itoobiya. wafdiga isku dhafka ah ee dowladda Itoobiya ku matalay wadahadalka waxaa hogaaminayay wasiirka isgaarsiinta Axmed Shire waxa kale oo ah madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cumar Cagjar iyo xubno kale ka tirsan mas'uuliyiinta maamulka Soomaalida. jabhadda ONLF waxa wadahadalka uga qayb galaya xubno sare oo hogaaminayo gudoomiyaha jabhadda Admiral Maxamed Cumar. wadahadalka waxa lagu gaaray isfahan guud si hore loogu sii socdo iyadoo dhammaan la isla dhameystiri doono qodobada laga wada hadlay ayaa lagu yiri wadahadalo kooban oo ka soo baxay jabhadda ONLF. wadahadalada Itoobiya iyo ONLF ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan dowladda Itoobiya ee cafis u fidisay ururada mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. Iida Cabdirasaaq Suudi xuriya 24 Hargeysa. weli halkaad warkaasi kala socotaan waa muqbaahiya caalamiga ee xuriya 24 TV xarunta guud uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. warar kale ilaa haddana soo gaadhayana waxaa ka mid ah madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo socdaal ku tagay Kuuriyada Waqooyi. si faahfaahinta warkaasi inoogu hayso wariye Mariya Bixirsi. madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa si weyn u soo dhaweeyay dhigiisa dalka Kuuriyada Koonfureed. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa gaadhay caasimadda Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi iyada oo halkaasi uu kala kulmay soo dhaweyn ballaaran. waana booqashadii ugu horeysay ee uu madaxweyne Kuuriyada Koonfureed ka socdo ku taga Kuuriyada Waqooyi muddo dheer waxaanay noqotay booqasho taariikhda gashay. Mariya Bixi telefishinka caalamiga ee xuriya 24 TV magaalada Hargeysa. daawadayaal intaasi waxaynu ku soo afmeeraynaa waxaan war idinka haynay dalka gudihiisa iyo guud ahaan caalamka. warkana waxaa idinla socodsiinayay habeenkani caawa anigoo Cabdiraxmaan Maxamuud Hayba. intaynu warkan war la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.